بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله والصلاة والسلام الأتمان الأطيبان الأظهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام ميل كastoo nagala daawanaysaan, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaan kadib insha allahu tacaala maanta waxaan dhamaystiraynaa qisadii ee aan bilaabna habeenkii lasoo dhaafayay, taasoo ku saabsaneed Umu Xabiiba, gabadhii la dhihi jiray saxaabiyadda jaliilkeed. intiini hore usoo daawatayna oo soo daawatay, waxaanu kasoo sheekeynay waxay ahayd gabadhaasi markay islaamtay ee ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa qirtay, wax kastoo ilaahay loogu sharig yeelayn inay ka beri noqotay, nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay u qirtay inuu rasuulka ilaahay yahay oon wax nebiga ka dambeeyi jirin oo xaq yahayna. dabeetana aabaheed Abu Sufyaanna iyo dadkeedii o dhan waxay kala kulantay yani dhibaato aada u ballaaran. waataan soo sheegnay inay lasoo hijroodeen markuu nabigu idma calayhi salaatu wasalaam inay kamid ah dadkii soo hijrooday ee dhulkan ee xabashada imaaday, ayadana waanu soo sheegnay. markii gabadhiisaan soo sheegnaba ay dhulkii xabashada imaatay boqor Najaashi la kulmeen iyo waxyaabihii dhexmar dhan aan kasoo hadalnay, inuu ninkeedii u yimaaday oo ninkeedii ku yiraahday laba mid dooro, inaan ku furo oo aan ku kala tagna meesha, iyo inaad diinta islaamka ka baxdo saa aniga u gaalowdo aan kaa rabo, labadaas mid dooro. labadii arrin bay gabadhii marka ku cuslaatay oo waxaan nidhi saddex arrin baa usoo baxday gabadhan saaxiibiyadda jaliil inay mid doorato. saddexda arrinba aada bay culus tahay. midda koowaad oo ah inay ninkeedii raacdo ridoobo diinta islaamka ka baxay, taasina waxaan nidhi adduunyo iyo aakhiro khasaaradeedaba meesha bay ku jirtaa. waxaan kaloo nidhi inay u laabato dhulkii ay ka timid aabaheed joogeen oo halkaasi aysan diintii ay xorta u ahayd meesha ay joogtay ay ka tagteen xaggaysan xor u noqon weyso, inay ilaahaygeedu rume weyso, yacni diinteedaba inaysanba xor u noqonin, ayadana waa caqabad meesha soo gelayso. midda saddexaad oo ah inay dhulkan xabashada iska joogto ee qurbaha ayadoo ayadoo oo hal gabar wadato, seegeediina diinta islaamka ka baxay, qaxootiniman ay ku jirto meesha ay joogtane, ayadana waa dhib. laakiin saddexdood markay isbarbar dhigtay waxay tiri horta riddo ilaah baan ka magangalay walciyaadu billah, inaan dhulkii diinteeda aan xor u ahayn aan ku laabtan iyo lii rafaadyane ayadana ma rabi, meeshaan qurbaheygaan iska jooga aan ilaahay subxaana watacaala ku caabudayo, halkan baan iska joogayaa. gabadhii halkaas markay marayso, ninkii cubaydillaahi ahay ee ayada seegeedii ahay ee ku yiri ama kufura ama diinta ka bax, wuxuu iska galay dhulalkan iyo meelaha baararka khamriga lagu cabo iska galay. marka khamra cab buu iska bilaabay, baarkaba kama baxo mana kala gooyo. intaasi markay marayso bu muddo yar markii laga joogo, haddaba muddo yar ninkii waaba dhintaba, yacni khaatimadii ay ka xumaatay walciyaadu billah, khaatim xumo baa nigii ku dhacday. gabadhii cabaar iska joogtay baa marka subaxyada ka mid ah baa albaabkii loo soo gargaraacay. albaabkii markii loo soo gargaraacay waxaa banaanka taaganba gabadhii la dhihi jiray Abraha. gabadhan Abraha waxay ahayd khaadumiinta boqor Najaashi midda ugu weyn bay ahayd, yacni khaadumadiisa bay ahayd. baa timid, markay u timaado waxay tiri saakay war farxadla baan ku wadaa. aad bay marka Umu Xabiiba u faraxday, gabadhii ramle-eed. war murug badan baa soo martay, waa ay soo rafaaday, ninkeediina waa kala tageen, waa gabar garooba oo meesheeda joogto oo rafaad badan haysto oo qaxooti ah, baa la yidhi saakay war farxadla baa lagu wadaa. aad bay u faraxday, niyadeedii baa qawooday, gudaha bay gelisay, way soo dhaweysay. waxay tiri bal ii sheeg. markaas waxay tiri boqor Najaashi baa kusoo salaamayey, boqorka baa kusoo salaamayey, wuxuuna ku yiri waraaq baa waa liiga kaa soo doontay, nin baa ku soo doontay.
ما شاء الله إلهي بدل خير قبسية لكن نك صودون تواكما ما صحابي با ما نين ماشي جوجا ما نك مغنبا نك بل إلهي فرج جوادها رفات كان أو رفات بين أمرتي إلهي محو بدل نك صود دورتي صود دوني وان نوعه قارن لياب لسوما نك صود دونتي وخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك إلهي وصود دونتي وليبا وراق بو سوقري أو وكيلنا يو بقر نجاشي نكون نكاحيو كبدي بي أفرحدي إن ما أنت سيد الرجال إنو صود دونتو خير خلق الله إنو صود دونتو إن ما أنت مربتي فرع بنات أم المؤمنين نغطو فرحدي بي نغطي قبر ماشان يعني قف قرابة أو ماشي جوكتا وإهد أو كل يعني وهل كويسنين لكن ما أنت وإيك بحضي ما أنت دادو رب قبر نصيب كبير لهاد بايدا أقول نصيب بدن بي أفرحدي markaasay farxadda ay farxada awgeed wax walbaysa dhagaha dhihin wixii faraantiyaha dhihin gacmaha wixii ku jiro oo dahaba kuwii qoorta wax aysan u kale wax allo eeysay gabadhii bay siisay gabadhiisiis aad bayn u farxada waxay tiri haddaan wax kaleysan lahay waan ku sii lahay maanta bishaarada iisoo sheegtay awgeed maalin markii xigtay baa marka waxaa iyadana way wakaalatay mid kamida bay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam bay wakiilatay inuu يعني أي ولاية ديبتو سلوغ نكاحيو نبي عليه الصلاة والسلام وحنا كل نكاحنا بقر نجاشي مالك مركا حفلة دي على السوق ماضي أو حفلة دي أراس كمشي كدعي نكاحي بعد دعي بقر نجاشي واخد بي بقر نجاشي مركا ميركي ذي محوغة دقي أفر بقر أو دينار ذهبا ومركا ماشي كداديو سحابي دي سوى كيلته وديبي مرة لمركي dadkii damceen inay kala kacaan oo qof walba majliskiisa ahay oo ku noqdo markaasaa boqor najaash wuxuu yiri saas ma ahe sunnada ambiyada meherkooda markuu dhaco meesha aroos ka dhaco waa in dacaam lagu sameeyaa fadhiista meeshii bay dadkii ku qurbaansadeen waxaa dhacay markii saxaabigii xoolihii buu qaaday dahabkii gabadhii buu u geeyey aad bay u farxda marka dee lacag intaa faraha badan leh oo dahab ah markaas waxay tiri abraha ligu waco gabadhii isoo bishaaraysay ha ligu waco markaasi waxay siisay 50 mithqaal oo dahab bay gabadhii siisay markaas xitir farxadda ay soo sheegtay awgeed baan ku sii qaado gabadhii markii ay wixii dhan ay siisay maalinkii labaad baa gabadhii soo noqotay wax alla wixii shalay dhiibto dhan ayadoo wado wax alla wixii shalay eegudo dhan ayadoo waday u keenta marka lacagtii dahabkii ha dhihin jijimii ha dhihin faraantiyadii wixii dhan markaas xitir maxaa dhacay maxaad igu soo celinaysaa soo kumaanan siinin markaas ba waxay ku tiri gabadhii abraha boqor najaashi baa wuxuu igu dhaariyey inaanan hal shilin ka qaadan gabadhaas wuxuu yiri gabadhaas cid wax ka qaadan kartaa ma jirto yacni waa leeyahay qofkii kaa farxiyaa inaan wax siinayso haddii siinayso markaas yiri waan ugu dhaariy inaanan qaadan saasaan kugu soo celiyey laakiin waxay tiri maanta hal dalabaan wataa inaad ii fulisaan yeelaa markaas waxay tiri maxay tahay dalabkaa iga rabtid oo aan rabto inaan kuu fuliyo markaas waxay ku tiri gabadhii abraha waxay dhahday waxaan rabaa tiri kow horta inaan nabiga calayhi salaatu wasalaam igu salaanto markaad igu salaantana waxaad u sheegtaa inaan islaamay inaan ilaahay rumeeyey oo waxdaaniyiisa qiray nabigiisana calayhi salaatu wasalaam nabiniman u qiray intaas iga gaarsii iguna salaan waana isoo anbabixisa bay tiri maalinkii labaad markii u timid nabiga calayhi salaatu wasalaam xabiibay nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam waxay u sheegtay wixii meesha ka dhacay iyo siday wax u dhaceen sidoo arooskii u dhacay gabadhii abraha waxay kala soo kulantay waxayna tiriya dhahday gabadhaasi waa ay kusoo salaamaysay wayna islaamtay arrinkaasna hay iloobna igu soo dhahday markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wacalayhi assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaas ayayna uma xabiibahay uma xabiib radiallahu canha ay magaaladii joogtay joog nabiga calayhi salatu wasalaam uguna tagtay dhibkii faraha badnaa ee ku jirtayna ilaahay baa ugu bedelay faraj kheyr qabo insha allahu tacaala ilaahna waxaa weydiisanayaa dhammaanteen intii islaam ahlu tawxiida inuu kurbadooda feedo intii kurbaysan kurbadooda feedo muraadoodana allah sahlo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu